حسن موسى أجاسنا الصومالي إيكونوميك فورم إن فضل وحنا الويديا محن نقول لي فكرة ده هن رتي فكرة ده وحنا نقول لي قلنا وحقوق من السوق وباهي الله قبو organizations دانو كلا وضع كوا وضع من قريب باتوين وحصل وسوق كرماها ganacsiga Soomaaliya waxay u baahan tahay waxaad soo fiirisid guidance mid kale waxa loo baahan yahay in dadka isku keeno dawladii ganacsatadii dadka academicski waa waxyaabaha aan doonayna inaan qabano hadda waana wax forum ka kooban yahay asaaskeedu uu yahay iyo shaqada lagu qaban lahaa marka insha Allah waxa labadoodu shay ugu muhiimsan waxa weeye midan ah inaan forum gole aan sameeyno aan isku keeno ganacsatadii aqoon-yahanadii iyo dawladii intaba si looga hadlo dhibaatooyinka dhaqaale ee markaa taagan sida xal loogu heli lahaa taas waa mid kale aan doonayno aan haddana runtii aan sameynay waxaa weeye research and development center taa aan ku sameynayno baaris cilmi baaris dhaqaalaha وهذا وان بلوني ريبوري يا جيران aan hadda diyaarinay cidii danaynaysa website-kayga ay geli doonaan waa www.somalieconomicforum.org runtii visionkii ama objectivekii taasuu ahaa visionku waxaa weeye hadduu ilaahay yidhaahdo in aan door ka ciyaarno soo kicintii iyo horumarintii dalka Soomaaliya waxyaabaha runtii aan ugu muhiimsan aan sameynayno waxaa weeye waxaan iibinaynaa magacii Soomaaliya adduunyadan ka gadeynaa dadkiiba niyadda ma garanaysaayo niyaddu aan leenahay niyadiina u sheega ogaada in horumarinta dalka ku xiran yahay annaga shakhsiyaadka Soomaali qof walba oo Soomaali ah uu door ka ciyaar karo sida horumar loo wadanku horumar u gaari lahaa haddii aan halkii bartay caafimaadka dhaqaalaha intaba marka anagu maadaama aan nahay group waxaan ma garanaysaa cilmi u leh xirfadna u leh waxaan doonaynaa insha Allah inaan meesha ka soo nuurno sidaan hadda aragno dadku inta badan ay noogu riyaaqeen alxamdulillah natiijooyinkooda waa haynaa taas waa mid arrimaha kale waxaa weeye wixii wax qabad ah hadda aan qabanay halkan wadankan London wadankan England magaalada London aan hadda ku noolahay team baa noo jooga reportyada aan nagala shaqeeya reportyaha aan diyaarino cidii danaynaysa saan sheegay oo website-ka ka heli karaan shaqooyinka kale aan qabanayno insha Allah waxaa ka mid ah annual forum aan doonayno inaan qabano magaalada Nairobi ariisa kan u doorayno wax kale ma aha waa mas'uuliyad Nairobi hadday noqoto dhinaca ganacsi waa wadanka kaliya ay runtii ganacsiga Soomaaliya aad diidaysatay ama si fiican ugu xoogaysatay waxaan doonaynaa halka inaan ku qabano ilaahay yiraahdo mustaqbalka maxaan runtii isleenahay ilaa heer xageedka laga gaari karaa waxaan u maleynayaa mustaqbalka Soomaaliya maanta maalin ka fiican yahay runtii ma jirto taa waxaa runtii astaan u ah sidii dad badan xataa aan Soomaali ahayn oo ma garanaysaa caalamka meel kasta kala socday sida ishu waxayaan Soomaaliya waxaanu ka qayb galnay shirkii maalinta dawladda lagu qabtay Istanbul oo runtii focusku uu ahaa iyadoo dhaqaalaha iyo dibadhisidda dalkii rajada aad bay u fiican tahay waxaana rajaynaynaa ilaahay inuu markaana nala garab qabto dadka Soomaaliyeed dhibaatada ay ku jiraan ay ka baxaan waxaan kusoo gabagabayn lahaa kow shakhsi kasta Soomaaliya waa mas'uuliyad saaran inuu dadkii wax u qabto dalkiina horumariyo anagu kolay dhaqaalayahan ahaan doorkaasaan doonaynaa inaan ciyaarno inaan cid allaale ciddii wadankii horumarinaysa ha ahaadaan nimankan academicska ha ahaato dowladda inaan diyaarno inaan la shaqayno haddana aan bilown inaan la shaqayno marka waxaan idin rajeynayaa qof walba oo Soomaaliya inta meel kasta ay joogaan in ilaahay uu dhibaatada aan ku jiro naga saaro anaguna doorkeenaan insha Allah ku ciyaarayna marna ma tagteen meel ka mid ah meelaha Soomaalidu ay degan yihiin dalkii Soomaaliya amba xataa meelaha ay ku badan yihiin hadday Kenya noqon lahayd Ethiopia amba xataa Djibouti hadda ilaa ay hadda laba meel ayaan ka howlgalnaa Soomaaliya mid waa Boosaaso mid kalena waa Muqdisho caasimadii
waxaan ku leenahay laba xafiis wakiil ayaana noo jooga su-aashan dad badan baana weydiiyey ee ku jirto BBC Soomaaliya runtii jawaabteenu waxay ahayd yes waan joognaa waan ka howlgalnaa laakiin sida halkan aan kaga howlgalna kagama howlgalno laakiin waxaan doonaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo muddo gaaban sida halkan aan kaga howlgalno aan kaga shaqayno inaan xaggaa kaga shaqayno su-aashaadan ah ma tagteen meel ganacsatada Soomaalidu ay joogaan hadda ma aanan tegin laakiin waan u soconnaa hadduu ilaahay yidhaahdo waana muhiimadda ugu weyn aan ka leenahay shirka aan ku qabanayno Nairobi aan isku keenno ganacsatada Soomaalida laakiin markii aan ka hadlo isku keenida ganacsatada Soomaalida waa mid aan horey u sameynay xiriir fiican baan la leenahay ganacsatada Soomaalida ay ku jiraan kumbaniyaasha Soomaalida waaweyn sida Shiil Amal iyo kuwa kaleba tan la xiriidha shirkii Turkiga malay inaad ka qayb gasheen waan ka qayb galay Soomaali intee leeg baa isugu timid xagga dhaqaalaha marka loo eego wallahi runtii way badnaayeen anu kule ma tirin karo shakhsiyaad kuma wada sheegi karo cid allaale cidii maadaama aanan listkii dadkii kasoo qayb galaanahaynin laakiin waxaan la kulmay dad badan macni dadkii Somali Economic Forum ka socday waxa ay la kulmeen dad badan oo dad ganacsatada Soomaali ah focuskuna wuxuu ahaa in laga hadlo dhaqaalaha iyo dib u dhisidda dalkii wax badan baan ka faa'iidnay waxaan rajeynayaa in waxyaabihii laga hadlay dalkooda la heli doono muddo gaaban hadduu ilaahay haddaad eegto shirkii Turkiga runtii dadka Soomaalida aad u eegayeen aad loo xiiseynayay aad loo dareynayay maxaa u malaynaysaa waxa qaabka Turkida amba dowladda Turkiga uga hayaan isha maxaa u malaynaysaa dad akhrisay inay dhali karto waxa la isu geeyaan bal isu wallahi waxaan effortka iyo juhdiga Turkiga ay gelisay waa waxa wada soo dhahay waa mid positive ah laakiin anu mar walba waxaan dadka xusuusin lahaa innaga nagu xiran tahay waxay ku xiran dadka Soomaalida midna dalkaaga kuma iskari la adiga aad dhisato marka waa fursad qaali ah maanta fursad aan haysano insha Allah waxaan rajeynayaa inaan ka faa'iideysano هذا ما استطاع